soo dhow walaal haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar si muuqaalada mustaqbalkan soo gelin doona ay kuu soo gaaraan muuqaalka la gare si dad badan u gaaro na caawiyo waad mahadsan tahay sidee loo ilaashadaa qofka ku jecel waxaan halkani kugu soo gudbin doonaa 3 qodob oo si weyn kaaga caawin karta inaad ilaashato qofka ku jecel adigana aad jeceshahay qodobka koowaad ha kontroolin qofna ma jecla in la kontrolo waayo waxa uu qaadanayaa inuu ciriiri uu ku jiro si ciriiriga uga baxana waxa uu sameeynaa inuu ka fogaado ama uu jiro xiriirkaaga qodobka labaad hala barbardhigin dadka kale waayo waxaad noqonaysaa inaad u sheegayso inaga fiican yahay sidoo kale waxaad qeexaysaa inaad raadinayso qof kaa maqan qofkani kula joogana aadan jeclayn qofna ma rabo in qof ficiisa looga sheekeeyo adiga xitaa waa dhibsanaysaa marka qofka aad jeceshahay uu kaaga sheekeeyo qof kale wanaagiisa quruxdiisa iyo sida uu u egyahay haddaba si aad u ilaashatid qofka aad jeceshahay ha samaynin qodobkan qodobka saddexaad dareensii qofkan aad jeceshahay muuqaalkiisa waan ogahay waad wada jeceshahay qofkani laakiin waxaad u tilmaamtaa meelo si gaar aad uga jeceshahay si fiican u tilmaam meelahaasi weliba adigoo u sheegayo in meelaha uu ka qurux badan yahay in qofka aad jeceshahaad uga sheekayso meelaha uu ka qurux badan yahay waxa ay kordhinaysaa xiisaha qofka uu kuu hayo waxaana ku siyaadaya jacaylka uu kuu qabo adiga qodobka afraad ku kalsoonow haddii qof aad ku daba aragtid weydii qofkani qofka uu yahay ha degdegin hana kala duldhicin xanaaq waxaa laga yaabaa in sida aad wax u fahantaysan u jirin si lagaga qanciyo weydii wax hubso mar kasta waxaad qofkani u muujisaa in kalsooni aad ku qabtid qodobka shanaad waxba ha aarsanin waxaan ula jeedaa haddii dhowr mar aad wacdo qofka uu kaa qaban waayo adiga haddii lagu soo wacana sidaa ha samaynin haddii mesajka lagaa soo daahiyo adigana ha ka daahinin waxba ha aarsanin waxaad u samaysaa qofkani sida ugu quruxda badan ee aad awoodid waxaa laga yaabaa in qofkani marka aad wacayso koolkaaga uusan ka jawaabi karin ama mesajkaaga uusan ka jawaabi karin haddaba ha aarsanin waxba ku noolow nolol dhammaystiran qofka aad jeceshahay wada sii jacaylkaaga oo idil waxba ha ka hagaranin qofkaad agtiisa farxad iyo nabadgelyo aad ka helayso la joog wakhtigaaga oo idilna la qaado qofkaasi ku jecel aad adigana aad jeceshahay ilaasho si aad nabad iyo naxariis jacayl iyo fahm aad ugu wada noolaataan